mas-uuliyiintan qabatay shirka jaraa'id ayaa sheegtay inay beeshu kala kulantay xukuumadda kulmiye cadaalad darro baahsan sidoo kale afhayeenka beesha ayaa sheegay waa sida uu hadalka u dhigay inaanu madaxweynaha Soomaaliland ugu abaalgudin amaba ugu hambayn sidii ay beeshu ugu listay markii uu ku jiray ololaha xisbiga kulmiye kula wareegay madaxtinimada waddanka. halkan waxaan ka salaamayaa dadka sidii u dhan yihiin reer Soomaaliland shacbiga reer Soomaaliland waxaan ka salaamayaa beesha Maxamed Sheekh Isxaaq oo aan ka sidno intii qurba joog ahayd dambaalkaas oo ah mid una hadlaya kana hadlaya dareenka shacbiga iyo qabiilka Maxamed Sheekh Isxaaq. dambaalkaasi waxa uu yahay hadalka uu ku dhow yahay ayuu ku dhan yahay. dambaalkaasi waa mid ka turjumaya dareenka beesha Maxamed Sheekh Isxaaq kaas oo ka turjumaya xuquuqda ay ku leeyihiin dalka Soomaaliland iyo xaqa sida uu dhan yahay qaybsiga dadka reer Soomaaliland ay ku lahaayeen aasaan ka helin ilaa iyo 4 sano ugu dambeysay. dambaalkaas waxayna faahfaahinaya anigoo ah Mustafa Faarax Aqliyare oo ah madax dhaqameedkii beesha Maxamed Sheekh Isxaaq gobolka Togdheer iyo Barigaba ilaa taariikhda been ma sheegtay anigoo ah afhayeenka qurba jooga beesha Maxamed Sheekh Isxaaq waxaan leeyahay oo aan ka gudbinayaa fariin ka turjumaysa dareenka dadka beesha ah waayo shirar badan oo aan galnay isdaba jooga waa wixii ka soo baxay. marka hore halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ahaanba wargeysyada iyo telefishinada madaxa bannaan gaar ahaan home cable oo naga dhalgiyay warka. haddaba fariinteedina waxaa ku socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyi. madaxweyne waxaan kaaga sidaa fariin beesha Maxamed Sheekh Isxaaq waxa ay leeyihiin madaxweyne dagaalkii dheeraa halgankii dheeraa aynu soo maray ee aadna madaxweynaha ka ahayd wixii laga dagaalamay cadaalad la'aan bay ee naf iyo maalba lagu waayay. beeshuna maanta dowladda adigu madaxweynaha ka tahay waxay ka tirsanaysaa cadaalad la'aan waayo ismaan lahayn Ibrahim baa Soomaaliland ka noqon doona Falastiiniin la yiraahdo waxba kuma leeyihiin saami qaybsiga beesha Soomaaliland. waxaan leeyahay madaxweyne dowladdii aad magacawday golaheeda wasiirada golaheeda barasaabadeeda maayiradeeda agaasimaasha guud iyo kuwa waaxeed safiiradeeda dhammaan ahaantoodba xilalkii aad qaybisay beeshaas waxba kuma laha. waxaan leeyahay ninkii gabiyay wuxuu yiri rag cadaalad waayay sidii cawsha kale yaa kii kalena wuxuu yiri muslimnimo ninkan kugu dhaqayn muuminimo khaasa gaal maxasta ku dhowro magastaan dhaama. waxay beeshu tabaysaa ay ku leedahay oo aan ku leeyahay indhahaaga hoos u eeg beesha iyo sidaad u qadisay. waxaan ku leenahay beeshu waxay ka sugaysaa jawaab degdeg ah ayay ka sugaysaa saami qaybsiga beelaha. Cabdi Xaafid Awal Ismaaciil Home Cable TV galbeedka magaalada London.